bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV caawa idin haya waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerar saf ballaaran ah ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Baay qaramada midoobe oo ku dhawaaqday inay dhimayso ciidanka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya madaxweyne lafta gareen oo halis ugu jira in xilka laga qaado sabab la xiriira xariga Roobow faahfaahin laga helay socdaal ra'iisul wasaare Khayre uu ku aaday dalka Qatar iyo wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya oo beenisay in warqad wasaaradda ka baxday Puntland lagu ogolaaday in heshiis ay la gasho shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha wararka dibadda wararka TV caawa idin haya waxaa ka mid ah nin dili rabay madaxweynaha Kenya oo la qabtay iyo toogasho ka dhacday waddanka Mareykanka daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena ku cusub barta YouTube-ka fadlan subscribe barteena si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya iyo caalamka kooxda al-shabaab ayaa weerar saf ballaaran ah waxa ay ku qaadeen saldhigyo ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Baay dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada militariga Soomaaliya kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kuwa Itoobiya ay ku leeyihiin degmooyinka Bardaale iyo Qansax Dheere oo ka wada tirsan gobolka Baay dagaalka oo si isku mid ah xalay saqdi dhexe u bilowday kadib markii dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ay weerareen fariisimo ciidanka dawladda iyo kuwa Itoobiya ay ku leeyihiin deegaanada waxaana la maqlay rasaas culus oo degmooyinka Qansax Dheere iyo Bardaale ay isku wadaarsanayeen ciidanka dawladda iyo kuwa al-shabaab dadka deegaanka ayaa noo sheegay in ciidamada Itoobiya ay madaafiic xoog badan rideen intii uu socday dagaalka Bardaale waxaa saldhig ciidan ay u tahay ciidanka Itoobiya qaybta ka ah AMISOM iyo kuwa kale oo aan AMISOM ku jirin oo Itoobiya ka socdo kuwaas oo weerar xoog leh xalay kala kulmay dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan ayaa sheegay in al-shabaab ay weerar gaadma ku soo qaadeen degmada Bardaale balse ay iska caabiyeen sidoo hadalka u dhigay wuxuuna intaasi ku daray inuu jiray khasaare dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya iyo sidoo kale dagaalamayaashii ururka al-shabaab ee weerarka soo qaaday dadka deegaanka ayaa wariyay in saaka isbitaalka guud ee degmada Bardaale la keenay dhaawacyada 10 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya kuwa uu ku dhaawacmay weerarkii ururka al-shabaab ay ku qaadeen degmada Bardaale dhanka kale waxa al-shabaab isla xalay ay weerar culus ku galeen ciidamadooda degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay waxaana la sheegay in dagaal muddo socday uu duleedkii iyo gudaha degmada ku dhexmaray ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab dagaalka Qansax Dheere ka dhacay wali si rasmi ah looma hayo qasaaraha ka dhashay laakiin saraakiisha hogaaminaysa ciidanka koonfur galbeed ayaa sheegay in iska caabin ku sameeyeen weerar culus oo dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab dhowr jiha ay kaga soo qaadeen degmada waxaana saraakiishu ay sheegeen inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac balse aan wax faahfaahin bixin karin waxaa khilaaf xoogan uu ka dhex jira hoggaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana khilaafkaasi uu salka ku haya xariga Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed waxaana hadda baydhabo ka bilowday isku day xilka lagu qaadayo madaxweyne lafta gareen madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo gudoomiyaha Shariif Sheequna ayaa khilaafkoodu wuxuu salka ku hayaa xariga Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo ay gacanta ku hayso hay'adda nabad sugidda Soomaaliya isla markaana ku xiran magaalada Muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa ku eedeeyay madaxweyne lafta gareen inuu kaalin ku lahaa xariga Sheekh Mukhtaar Roobow wuxuuna amray in si degdeg ah uu u soo daayo isagoona sheegay in xarigiisa ay iska kaashadeen sidoo hadalka u dhigay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen iyo wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya lafta gareen oo ku gacan saray codsiga gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa waxa uu iska fogeeyay eedeymaha loo soo jeediyay isagoo ku adkaystay inuusan wax kaalin ah ku lahayn xariga Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Shariif Sheequna waxaa la safan xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee taageersan Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur waxaana wararku ay sheegayaan in laga cabsi qabo in mooshin laga keeno madaxweyne lafta gareen oo muddo bilaa xilkaasi hayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa rumaysan in madaxweyne lafta gareen uu awood u leeyahay in madaxda dawladda uu ku qasbo inay soo daayaan Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur ayagoo sheegay in haddii lafta gareen uu xiriirka u jiro dawladda ay ku qasban tahay in warkiisa ay maqasho maadaama dawladda Soomaaliya aysan heshiis lahayn maamulada kale ee ka jira dalka isla markaana aysan doonayn in maamulka koonfur galbeed uu ka soo horjeesto
suldaan shariif cali xasan oo ka mid ah waxgaradka koonfur galbeed oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay khilaafka ka jira hogaanka maamulka koonfur galbeed ka oo laga cabsi qabo siduu hadalka u dhigay inuu meel xun gaaro isla markaana madaxweyne lafta gareen meesha qaramada midoobay ayaa shaacisay in la dhimayo askarta amisom ee ku sugan dalka Soomaaliya iyadoo dhawaan dalka ay ka baxayaan kunkii askari ee ugu horeysay qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday inay mar kale dhimayso ciidanka amisom ee ku sugan dalka Soomaaliya si loo gaarsiiyo 19,626 askari inta aan la gaarin 28 Febraayo sanadka soo socda ee 2020 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay isku raacay in 1,000 askari oo hor leh oo ka tirsan amisom laga saaro dalka iyadoo aan si rasmi ah loo sheegin dalka uu noqonayo hase ahaatee wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in Kenya ama Burundi ay yihiin askarta laga saarayo Soomaaliya qorshaha cusub waxaa golaha hordhigay dowladda Ingiriiska oo ka mid ah wadamada bixiya dhaqaalaha lagu socodsiinayo howlgalka amisom waxaana dalka Ingiriiska sidoo kale uga sugan dalka Soomaaliya saraakiil tababar siisa ciidamada Soomaalida iyo kuwa amisom marka talaabadaasi la qaado ayaa iyana waxa barbar socdo qorshe ah in la kordhiyo booliiska amisom oo la gaarsiiyay ilaa 10,040 askari oo booliis ah taliska amisom ayaa dhowr jeer hore ku celceliyay in inta aanu dhammaan muddada dawladda uu hogaamiye madaxweyne Farmaajo ay ammaanka dalka ku wareejinayaan ciidanka Soomaaliya iyadoo la dhimayo tirada ciidamada ka jooga Soomaaliya ee gaaraya 22,000 oo askari kuwa oo ka kala socda dalalka Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia howlgalka amisom ayaa socda muddo ka badan 11 sano iyadoo aan wali la gaarin natiijo fiican maadaama al-shabaab ay tahay caqabad muuqata oo ku horgudban dawladnimada Soomaaliya kuwa awooda inay weeraraan xarumaha dawladda iyo kuwa amisom waqtiga ay doonaan waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helay safar ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu ku aaday maanta dalka Qatar ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta oo Sabti ah waxa uu boqolay magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar halkaas oo uu kula kulmayo madax ka tirsan dawladda Qatar sida ay shabakada wararka TV u sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa kulamo ula qaadan doona madaxda dalka Qatar oo lagu xantay in dawladda Soomaaliya ay taageero dhaqaale iyo mid maaliyadeed la garab istaagto ujeedada dhabta ah ee socdaalka ra'iisul wasaare Kheyre ma cadda balse xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa shaaciyay inuu kala xaajoon doono hogaanka dalkaasi Carbeed xoojinta xiriirka Soomaaliya ee Qatar safarka degdega ah ee ra'iisul wasaare Kheyre uu ku aaday magaalada Doha ee wadanka Qatar ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli madaxweyne Farmaajo uu dalka Sacuudiga gaar ahaan magaalada Makka uga qayb galaya shirka ururada iskaashiga Islaamka isbuucyo ka hor ayay ahayd markii wada hadal dhanka telefoonka ay yeesheen amiirka dalka Qatar iyo madaxweyne Farmaajo iyagoo ka wada hadlay arrimo quseeya labada wadan Qatar ayaa la rumaysan yahay in ay saameyn xoogan ku leedahay go'aanada siyaasadeed ee dawladda Farmaajo maadaama ay gacan ku siisay doorashadii 7 Febraayo 2017 ka dhacday Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa beenisay in war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda Puntland lagu ogolaaday in heshiis ay la gasho shirkad laga leeyahay wadanka Shiinaha kadib markii madaxweynaha Puntland Siciid Dani iyo wasiirkiisa kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Farax Awaashe ay heshiis la galeen shirkad qaabishan dhismaha oo laga leeyahay wadanka Shiinaha ayaa baraha bulshada waxa lagu baahiyay warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya oo ay ku qornayd in xukuumaddu ay u ogolaatay Puntland inay heshiiskaasi la gasho shirkadaasi war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri in warqadda baraha bulshada lagu baahiyay ay tahay mid been abuur iyo propaganda oo la soo dhoobay isla markaana aanu jirin wax ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo warqad ah wasaaradda arrimaha dibadda ayaan wax ka ogeyn heshiiska Puntland ay la gashay shirkadda dhismaha ee laga leeyahay wadanka Shiinaha taa oo dhismo ka dhisaysa dekadda magaalada Ayl ee gobolka Nugaal wararka dibadda wararka TV caawa idin hayna waxa kamid ah nin dili rabay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la qabtay booliiska dalka Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin qorsheynaya dilka madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ninka oo la qabtay maanta oo Sabti ah ayaa isku dayay shalay inuu galo garoonka Naroko halkaas oo maanta lagu qabanayo xuska maalinta madaarka oo maanta ka dhacaysay magaalada Nairobi ee dalka Kenya saraakiisha militariga ayaa sheegay in aadan galhaa oo 22 jir ah shalay ay qabteen militariga Kenya ha yeeshee uu ka baxsaday
ninkan ma sheegin qorshihiisa ha yeeshee booliiska ayaa sheegay inuu damacsanaa dilka madaxweynaha Kenya oo maanta khudbad ka jeedinaya garoonkaasi. saraakiisha booliiska Kenya ayaa sheegay in Aadan uu sanadkii 2014 ku biiray dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab isagoo tababar soo qaatay wuxuuna ku noolaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. booliisku waxa ay sheegeen in markii ay ka shakiyeen Aadam ay qabteen laakiin uu ka fakaday waxaana intaas ay ku direen inay gacanta ku hayaan nin kale oo la socday Aadam oo isna wax ka qorsheynaya dilka madaxweyne Uhuru Kenyatta. ku dhawaad 15 qofood ayaa nin hubaysan waxa uu ku dilay magaalada Virginia ee waddanka Mareykanka. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay toogasho jimcihii ka dhacday dhismo ay dawladdu leedahay oo ku yaala gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. booliiska ayaa waxa ay sheegeen inay ka shakisan yihiin qof shaqaale ka ahaa magaalada Virginia Beach isla markaana si ula kaca rasaas aan kala sooc lahayn ugu furay dadkii ku sugnaa dhismahaasi. ninka hubaysan ayaa markii dambe waxa uu ku dhintay rasaas ay ciidanka booliiska iswadaarsadeen kadib markii uu dhaawacay askari ka tirsan ciidamada booliiska Mareykanka. goobta dhacdadu ay ka dhacday waxaa soo buux dhaafiyay ciidamo badan oo booliis ah kuwaas oo goobta xiray isla markaana shaqaalihii dhismaha ka saaray goobtaasi. mid ka mid ah dadka la toogtay ayaa waxaa lagu dhex toogtay gudaha gaarigiisa halka meydadka inta kale laga helay 3 dabaq oo ka mid ah dhismaha weerarku ka dhacay sida ay sheegeen madaxda booliiska gobolka Virginia. guud ahaan daawadayaal warkii waad kala socoteen wararka TV caawa wanaga inta